kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa barteena Bilan Radio wararka maanta aan idin helana waxa kamid ah madaxweyne lafta gareen oo ka qayb galaya shirka golaha wada tashiga qaran oo uu hore isaga diiday diyaar garowga shirka golaha wada tashiga qaran oo Muqdisho ka socda ra'iisul wasaare Roble oo kulan hordhac ah la qaatay madaxweynayaasha maamulka Puntland iyo Jubbaland booliiska Hirshabelle oo soo bandhigay burcad hubaysan oo dhac ka geysan jiray magaalada Beledweyne iyo maamulka Koonfur Galbeed oo shaaciyay qabashada doorashada 11 kursi oo aqalka hoose ah واسبتي taariikhdu ay ku beegan tahay kooda bisha koobaad sanada 2022 u diyaar garooba wararkaas oo dhameystiran waxaan ku bilaabeynaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen ayaa waxa uu ka qayb galaya shirka golaha wada tashiga qaran kaas oo uu hore maamulkiisa u qaadacay afayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimu oo war ka soo saaray shirka golaha wada tashiga qaran ayaa shaaciyay in maalmaha soo socda shirkaas uu ka furmi doono magaalada Muqdisho isla markaana ay joogaan madaxda afar maamul goboleed afayeenka xukuumadda ayaa sidoo kale shaaciyay madaxweynaha Koonfur Galbeed oo halka madaxweyne ee Muqdisho ka maqan uu dhawaan imaan doono si uu uga qayb galo shirka waxa socda diyaar garowga furitaanka shirka golaha wada tashiga qaran ee uu iclaamiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo Muqdisho ka furmaya maalmo dhow oo inagu soo aadan ayuu yiri afayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimu qoraalka Macalimu ayaa waxa uu intaas ku sii daray shirka ayaa waxa looga hadli doonaa dardargelinta doorashooyinka iyo dhameystirkooda iyo sidoo kale tabashooyinka ka taagan in la xaliyo waxa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ku sugan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabelle, Galmudug, Puntland iyo Jubbaland madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaana la filayaa inuu soo gaaro magaalada Muqdisho si uu uga qayb galo shirkaas madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen ayaa horey khilaafkii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxa uu sheegay in uusan ka qayb gali doonin shirka uu iclaamiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble asay yeeshee cadaadis kaga yimid beesha caalamka ayaa waxa uu sheegayaa in madaxweyne Laftagareen uu ku qasabtay inuu ka soo qayb galo shirka golaha wada tashiga qaran oo lagu dhameystirayo arrimaha doorashooyinka magaalada Muqdisho waxa ka socda diyaar garowgii ugu dambeeyay ee ku aadan shirka golaha wada tashiga qaran oo ay ka qayb galayaan madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana lagu wadaa in uu shirka furmo maalinta Isniinta ah ee ina soo aadan ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay magaalada Muqdisho kula kulmay madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxaana uu kala hadlay furitaanka shirka golaha wada tashiga qaran kulanka ayaa waxa uu ka dhacay hotel ee degiyihiin madaxda maamulada waxaana sidoo kale diiradda lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa shirka golaha wada tashiga qaran afayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa sheegay in maalmaha soo socda uu ka furmi doono magaalada Muqdisho shirkaasna ay ka qayb gali doonaan dhammaan madaxda maamul goboleedyada booliiska Hirshabelle ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen burcad kuwaas oo dhac ka geysan jiray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ciidamada booliiska dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa howlgalo saacadihii la soo dhaafay ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxa ay ku soo qabteen rag hubaysan oo dhac ka geysan jiray gudaha magaalada Beledweyne raggaas ayaa sidoo kale waxay ahaayeen kuwa isticmaali jiray kana ganacsan jiray waxyaabaha maanka dooriya iyaga oo watay hubka noocyadiisa kala duwan si ay dadka ugu dhacaan taliyaha saldhigga magaalada Beledweyne laba xidigle Maxamed Maxamuud Xuseen ayaa sheegay in ciidamadu qabteen dadka magaalada Beledweyne ku dhacay mooto bajaaj dhowr ah sidoo kalena ay ahaayeen kuwa hubaysan oo isticmaalayay waxyaabaha maanka dooriya sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaas ku sii daray in raggan burcadka ah ay cabasho ka keeneen dadweynaha magaalada Beledweyne waxaana uu sheegay in dhawaan maxkamad la soo taagi doono ka warbixiyo howlgallo isdaba jooga oo maalmahan ka socday magaalada Beledweyne howlgalladaas oo isugu jiray dhowr waji laakiin sida maanta meesha idiga muuqata
natiijadii laga gaaray iyo guushii laga gaaray halka maanta ku soo bandhigayno ay ugu horeyso qoryahaas iyo burcadii wadatay qamrigaas iyo dadkii ummadda ku dhibaateynay iyo fasahaadkii magaalada ku hay iyo mootooyinkaas oo la caadeystay in iska noqdaan wax cid walba maalin walba la kala dhaco si fududna lagu kala qaato haddaan ku hormaro midda nimankan burcadka ee hubeysan ee markaan xafiiska imaaday dacwadii koobaad ee iga imaatay ee bulshada reer Beledweyne ay soo gudbiyeen nimankan qoryahan wato arki kartiin ayagiina halkaan fadhiya bulshaduna in badan ay ka keentay cabasho badan inay ku baartaan moobilada ku qaataan guryaha ugu dhacaan ku handadaan bulshada intaas markii la soo gaartay ka booliis ahaan waxa go'aansanay in aan tilaabo ka qaadno taliyaha booliiska dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa ciidamada booliiska ku booriyay in ay si laban howlgallada ka dhanka ah burcadda hubeysan iyo kuwa dadka shacabka ah dhaca u geysanaya waas oo maalmihii la soo dhaafay ay wadeen sidii looga hortagi lahaa qorgan waa sayr waa qoryihii xilligeedii hore la isticmaali jiray waxa ku jira laba baalood labada baalood xataa afkeedu waa naqsay waxa laga yaabaa inayna dhici oo aysan dhici waxa lagu dhacaayna dadka reer Beledweyne gaadiida lagu dhacaay dadka shacabka lagu dhacaay cidaan lagu dhacayn ma jirto wallahi ku dhaartay marka hadii aadan qorasayra oo laba baalood aysan dhicin ay ku jirto hadii aadan ummadan aadan ka qaba karina idinka boqolaal ciidama war sheega maxaan tarayna ummaddu maxay naga aaminaa sheeg waa may waxa loo baahan yahay saad haddu soo qabateen inaa soo qabatiin maanta waxaan maraynaa in gaadiid la kala dhaco mooto la kala dhaco gidigaas mid loo dhaco gidiga mid loo soo dhaco waa goor shaqaashan koodii ma joogna xilliga waa 2022 galowheedna waa ceeb shaqadaas inay suuliyaan oo ay qabtaan cidda dadka laga rabaa waa askarta waa ciidanka booliiska waxaanu mahad celinayaa taliyaha saldhigga cusub rumaantii waa dadaaliyay wax badan oo qabtay waa tuuga waxa meeshan taagan waa nimankii burcadda lagu soo qabtay qoryahan waa kuwa gaadiidkan dhacay mootooyinka kala dhacay waa qamrigii iyo xashiiska war ilaahay ku dhaariya hadda ninkaas la keenaa waa qamri hadda lagu soo qabtay saaka aan taagana lagu soo qabtay waa qamri war qamrigii aan maraynaa in xaafadihii guryihii war xataa quraac lama gaari waxaan quraac ka dhigay hoynaa waa qamri waa u jeedi waa ma qasax ma guriga quraac kartaa jira hadda war ilaahay ku dhaartay waxa la rabaa inaan la dagaalano kuwa qamriga xashiishka daroogada caadeystay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ka mid tahay goobaha dadka ku nool ay ka cabanayaan burcadda hubeysan kuwaas oo xilliyada habeenkii ah badi dadka dhaca u geysta ugu dambeyntiina maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay shaaciyeen qabashada 11 kursi oo aqalka hoose xildhibaanadooda ah guddiga maamulka doorashada heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ee SID ayaa waxa ay shaaciyeen 11 kursi oo aqalka hoose ah kuwaas oo dhawaan la qaban doono doorashadooda guddiga doorashooyinka ayaa shaaciyay in xubnaha doorashada dhammaan lagu qaban doono magaalada Baydhabo wali ma jirto cid hirgelisay laba deegaan doorasho dhammaan maamul goboleedyada waxaana wali doorashada ay ka socotaa hal deegaan doorasho kuraasta la shaaciyay ayaana waxa ay kala yihiin kuraasta tirsigoodu tahay 1 hob 184 hob 253 hob 231 hob eber 2 hob 176 hob eber 46 hob 156 hob 159 hob eber 56 hob eber 50 hob eber 85 oo la filayo in dhawaan lagu qabto magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka waa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya guud ahaan warkii aad ka daawanayseen barteena Bilan Radio waa inaga taas daawada aad ku mahadsan tahay daawashadaada haddii aad nala joogtay ilaa iyo dhamaadka fadlan like saar boggeena si aad noo dhiirigelisay siina share garee muuqaalkan si uu gaaro saaxiibo badan mahadsanid